Bannaanbaxan oo ah mid ballaaran ayaa waxaa soo qaban qaabiyay dadweynaha Soomaalida ee ku nool Nairobi gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka iyo Gedo waxaana lagu taageeray galitaanka ciidanka Kenya ee gudaha Soomaaliya sidoo kalena waxaa looga soo horjeeday hadalkii madaxweyne Shariif uu kaga soo horjeestay faragelinta ciidanka Kenya ee gudaha Soomaaliya dibadbaxayaasha oo watay calamada Kenya iyo Soomaaliya ayaa ku qeerinaya erayo ka dhan ah xarakada Al-Shabaab iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya Shariif Sheekh Ahmed bannaanbaxayaasha oo socod ku soo maray wadooyinka xaafadda Islii ee Soomaalidu sida weyn u degto ayaa waxa ay ku dhawaaqeen erayo ay ka mid yihiin Shariif down Shabaab down waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha bannaanbaxaya oo ka hadlaya waxa ay isugu soo baxeen iyo waxa ay ka cabanayaan intaba waxa way laba arrimood weeye mid ugu horeysa waa taageerada aan ku taageerayna galitaanka ciidamada Kenya ay galeen gobollada Jubbooyinka aniga oo ah dadka u nasab sheeganaya Jubbooyinka qaas ahaan Jubbada hoose waxaan ka xumahay in uu Sheekh Shariif intuu madaxweynaha ahaa uusan marna ka hadlin dhibaatada lagu hayo dadka muxuu ahaa ku nool Jubbooyinka xeryaha qaxootiyada dadka ku nool 80% saddexda gobol ayay ka soo qaxeen sidaa daraadeed waxay ahayd hal maalin xataa hadduu nasabood garayn lahaa oo apologize siin lahaa oo uu dhihi lahaa war dadkii gobollada deganaa bal muxuu ahaa waan ka xumahay dhibaatada maalin walba gaaraysa 20 sano Al-Shabaab xataa waxaan u qaadan lahayn wax fiican waxaan dadweynaha ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka iyo Gedo waxaan cambaaraynayaa madaxweyne Sheekh Shariif kaas ay ahayd Soomaaliya Kenya ma gali karto gobollada Soomaaliya anaga wax badan naga qabsaday Al-Shabaab oo qabsatay waddankanagi sidaa daraadeed Sheekh Shariif waxaan leenahay hadalkaaga ka noqo waxaan ku dhashay magaalada Kismaayo waxaan jeclahay si aan gurigeyga dalkayga iyo deegaankayga ugu noqdo cid kasta oo ay dhibaysana waan ka soo horjeedaa cid kasta oo inay xoraan diidana waan ka soo horjeedaa cid ay rabto ha ahaatee bannaanbaxadan lagu taageeray galitaanka ciidanka Kenya ee gudaha Soomaaliya ayaa imaanaya xilli ay madaxda dowladda Soomaaliya ugu sareeyay hadallo iskhilaafsan ka soo saareen galitaanka ciidanka Kenya ee Soomaaliya sidoo kale maalmo ka hor ayaa magaalada Dhoble ku taal xadka labada wadan u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya waxa ka dhacay bannaanbax kan lamid ah Ibrahim Gedo Awale Bibo Royal TV Nairobi